sida ay ku waramayso warbaahinta dalka Mareykanka nin Soomaaliya oo ku xidhnaa xabsiga aadka u adag ee Guantanamo Bay magaciisana la yiraahdo Guuleed Xasan Durraan ayaa laga saaray qaybtii abadiyad ahayd ee xabsigaasi iyadoo loo wareejiyay qayb lagu hayo dadka la siidaynayo. Guuleed oo kamid ahaa 41 qof oo xabsigaasi muddo dheer ku xidhnaa ayaa hadda la sheegay in la siidaynayo. qareenada Guuleed ayaa sheegay in laamaha ammaanku ku wargeliyeen in la siidayn doono Guuleed Xasan Durraan ayaa la qabtay sanadkii 2006 isagoo xilligaasi ku sugnaa dalka Djibouti iyadoo dawladda Mareykanku sheegtay in uu xiriir la lahaa kooxda Al-Qaacida. Guuleed ayaa intaasi kadib loo gudbiyay xabsiga aadka loo ilaaliyo ee Guantanamo iyadoo oo uu halkaasi ku xidhnaa ilaa iyo sanadkii 2016 oo ahayd 10 guuradii ka soo wareegtay markii la xidhay wiilkan Soomaaliga ah ayaa la isku dayay in laga sii daayo xabsiga hase yeeshee madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa laalay siidayntii loo waday dadka halkaasi ku xidhnaa. Guuleed ayaa haddii la sii daayo aan ku soo noqon karin Soomaaliya maadaama sanadka Mareykanku ay horay u soo saareen xeer mamnuucaya in qofka xabsigaasi soo maray uu dib ugu soo noqdo dalkiisii hooyo. Siidaynta Guuleed Xasan Durraan ayaa ku soo beegmaysa xilli dunida aad u hadal hayso sanad guurada 20aad ee ka soo wareegtay markii la furay xabsiga caanka ah ee Guantanamo Bay. xabsiga Guantanamo Bay ayaa ku yaala jasiiradda Cuba oo ah meel ka baxsan carrada Mareykanka taas oo keentay in falalka ka dhaca aan loo aqoonsan falal ka dhacay Mareykanka. xabsigan oo ku yaala meel jasiirada ayaa lagu tilmaamaa xabsiga ugu xun ee caalamka ku yaala. jasiiraddan oo ahayd markii hore saldhig uu Mareykanku Cuba ka kiraystay sanadkii 1903 ayaa sanadkii 2002 laga dhisay xabsigan aadka u xun taas oo ka dambeysay dumintii labadii daarood ee Mareykanka isagoo oo madaxweynihii Mareykanka ee xilligaasi George Bush uu amray in xabsiga lagu hubsado cid walba oo ku lug lahayd qarxii labada daarood ee Mareykanka. waxaana dadkii halkaasi lagu xidhay la mariyay ciqaab kulul oo ay ka mid tahay jirdil, cunto ka soomin iyo weliba kufsi. hay'adaha xuquuqda aadanaha u dooda ayaa si weyn u dhaleeceeyay falka xabsigaasi ka dhaca. waxaa la sheegay in xabsigaasi intii u dhaxaysay sanadihii 2003 ilaa 2006 lagu hayay dad kor u dhaafaya 900 oo ruux kuwaasi oo aan dhammaantood soo marin. falalka xabsigan ka dhacay ayaa keenay in caalamku su'aal saaro dimuqraadiyaddii uu ku faani jiray dalweynaha Mareykanku iyadoo madaxweynihii Mareykanka soo maray ee Obama uu ku ololeeyay in uu xidhayo xabsigan isagoo Obama kolkii uu xafiiska yimi sanadkii 2009 isku dayay in uu ka dhabeeyo ballanqaadkiisii ahaa in uu xidhayo xabsiga Guantanamo taas oo ay ganafka ku dhufteen golaha Kongareesku. hayeeshee Obama ayaa amray in la khafiifiyo ciqaabta lagula kaco dadka halkaasi ku xidhan. dad badan oo xabsigan soo maray ayaa ka sheekeeyay ciqaabta lagu soo dhadhansiiyay xabsigaasi. dadkaasi waxaa ka mid ahaa wariyihii Al Jazeera Sami Al-Haji oo laga qabtay dalka Pakistan. dadka haatan xabsigan ku hadhay ee aan weli la sii dayn waxaa ka mid ah Khalid Sheikh Mohammed iyo Abu Subayda oo ku eedeysan in ay ka dambeeyeen qarxii mataanihii Mareykanka